السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين سلام الداوديال muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay gabar xalisay xisaab 50 sano lagu weerarsanaa waa arrin la yaab leh fadlan intayna muuqaalkeena u guda galin waa inoo muhiim inaad muuqaalka like saarto siina share garayso si uu gaaro dad badan muuqaalkan okay waad ku mahadsantahay la jaanqaadkaada kuna soo dhawaad muuqaalkeena maanta gabar ku sugan dalka Mareykanka ayaa maalmo kooban ku xalisay xisaab la xalin waayay muddo 50 sano ah Liza Bzrilo waxay ku guda jirtay waxbarashada PhD-ga ee jaamacadda Texas markii ay ka shaqeynaysay xisaabta madax xanuunka ku reebtay aqoon-yahano badan xisaabtan xalka loo waayay ayaa waxaa sanadii 1970 curiyay aqoon-yahan maadada xisaabta oo u dhashay dalka Ingiriiska oo la yiraahdo John Horton Conway balse ayada markii ugu horeysay ee maqashay xisaabtan xilli ay kulan aqoon weydaarsi u ka qayb galaysay sanadii 2018 xisaabta ay xalisay Mr. Liza waxaa horaantii sanadkan lagu daawacay journal ka faalooda arrimaha xisaabta iyo sayniska waxay noqotay professor ku xigeenka jaamacadda teknolojiyadda ee Massachusetts jahwareerka ka dhashay in la xaliyo xisaabta waxay ahayd arrin in muddo taagneed aqoon-yahano ku xal dheer dhanka maadada xisaabta kuwaas oo ku guuldareysay xalinteeda xisaabtan ayuu yiri Mr. Armayana oo ah cilmi baare ka tirsanaa jaamacadda Autonoma de Madrid xubin ka ah macadka xisaabta iyo sayniska Spain xisaabtan waxaa loo adeegsadaa qaybo kala duwan oo ka tirsan cilmiga sayniska badanaa waxaa loo adeegsadaa sida inay kala socdaan isbedelada dhaqaale ee suuqyada iyo muuqaalka maadada DNA ninkii curiyay xisaabtan John Horton Conway waxaa bishii Abriil أو أدنيت عذرك COVID-19 وحمر كاسي أها سديتن يلا بسنة جر نيجان كسو جيدا ليفربول وحو أها أقونيهان عانا أو سيوين لو قدرية مادة حسابتا أو بركة نغضي جامعات عان كأدون دا سيدا كامبريج إيا بريستون سؤال شاد سويدين يسان وحي تاهي سيدا يكو صورتك شيء إن قبردان دوان كسو قلن جبسي جامعات inay xal u heshay xisaabtan caanka ah ee la dhaqaajin waayay Mr. Liza waxay sheegtay in xisaabta ay xalisay markii ay fakar iyo dadaal badan gelisay waxay tiri waxay ahayd oo kale sida aniga oo ka shaqeynaya casharada leeyliga ee markaas la isoo diray waxaan tagay guriga kadibna waan ka shaqeeyay Mr. Liza waxay ku dhalatay degmada Maine oo ah deegaan miyi ah oo ku yaala Mareykanka waxay maadada xisaabta ku baratay College-ka Boston sanadii 2013 waxay waxbarasho ka bilowday kulliyadda qaranka ee sayniska markii ay bilaabaysay kulliyadan waxba kala socon cilmiga ku saabsan xujufurka xisaabtan iyo ma aysan lahayn tababar dhanka xisaabta marka laga reebo xisaabta linear algebra oo ay taqaanay waxaa sidaas wargeysta Boston u sheegay Alexander oo ka mid ah macallimiintii waxbaraysay gabadha wuxuu intaa raaciyay toddobaad gudihiisa waxay ku guuleysatay xalin xisaab ay ku guuldareysteen ardayda ay wax isla dhiganayeen guusha ay xisaabta ka gaartay Mr. Liza waxay dhiirigelin u horseedi kartaa in haween badan ay diiradda saaraan cilmiga xisaabta halkaasi oo ragga ku badan yihiin waaxda arrimaha shaqaalaysiinta qaabilsan ee Mareykanka ayaa sheegay in haweenka ka shaqeeya mashaqooyinka xisaabta iyo kombiyuutarada ay bulshada dalkaasi ka yihiin boqolkiiba 26 taas oo loo baahan yahay haween badan oo ku takhasusay cilmiga xisaabta waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani intaana muuqaalkii kulmi doono waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo